madal lagu soo bandhigaya buug ciwaankiisu yahay Hilinka Guurdoonka iyo Hagaha Qoyska ee uu qoray Sheekh Axmed Maxamed Faarax Dheeli ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Khartoum ee dalka Suudaan. waxaana qaabada soo bandhigga buuggan gacan ka geystay ururka caalamiga ah ee ardayda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan iyo madasha aqoon wadaag. buuggan oo qoristiisu qaadatay muddo sanad ah ayaa waxaa lagu soo aruuriyay tajaarib iyo qisooyin aad u badan kuwaasoo si qoto dheer uga hadlaya arrimaha qoyska. bandhigga waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo isugu jira madaxda jaaliyadda, culamaa u diin, ururo iyo arday Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Suudaan. munaasabadda waxaa laga jeediyay hadallo guubaabo iyo dhiirigelin isugu jira kuwaasoo loo jeediyay qoraaga iyo ardadii ka soo qayb gashay. ugu horreyn munaasabadda waxaa lagu daafuray gurfeen qaar ka mid ah cutubyada buugga oo ay soo jeediyeen aqoon-yahano Soomaaliyeed. dadka ka hadlay madasha waxaa ka mid ah Sheekh Abu Shayba oo ka tirsan culamaa u diinka Soomaaliyeed ee dalka Suudaan. horta guurku oo ogtiin waa qariisa insaaniya, cuntadu waa qariisa insaaniya, cabitaanka, hurdada, guurkuna waa qariisa insaaniya. islaamku waa tahdiibiyey, si tahdiiba in loo isticmaalo, qofna shahwo kama maarmi karo. weli waxaa la yidhahdaa waxa weeye min ashaddi qaraa'is, waa mid ugu daran qofku la waasho, dada la waasha oo lagu daaweeyaa guur. waa ogtii waxaa isna munaasabadda ka hadlay qoraaga buugga si dheer uga hadlay heerarkii uu soo maray qorista buuggan. waxaan u gudbayaa cutubyada buuqa oo aada looga sheekeeyey iyo weli meelihii xasaaska ahaa. xulashada, runtii xulashada qof walba waxbaa uga bilaaban. waxaan isleeyahay waa mawduuca ugu sahlan, qof walba waxbuu isaga diyahay, iyagaa iswaraysanaya xoogaabay ya. laakiin meelaha buugga aad ka heli doontaan oo xoogga aan u naqdinay waxaa ka mid ah beenna waa lagu soo xerogeliyaa, runna waa lagu dhaqaa. maana waxyaalaha inta badan wiil yar oo waxba haysan oon reerna waxba dhaqan karin baa wuxuu leeyahay doontii waagi dhow degaysay soo ma ogin anay ii degaysay. adduunkan ana gabadhiyo marka hungurigii yaa hungurigii cirkaa maray qolo kaftabaysaa waxay yidhaha nin baa haweentu shaqaansaday waxay tiri war maxaan haysataa si gaari baan haystaa. ila gaariga meelaha qaarkood baa si kale looga yaqaan. ayadoo marka waxay moodaysiisow inuu leeyahay baabuur weyn oo ina tare iyo markaasuu gaari dameerkiisi guriga markuu aroosku keensado markaasu dar gaariga ii sheegaysa bakaraa suu yiri haa gaari waayo. haddaba markaasaa la isku boodiyay ya. marka runtii rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi shardi waxa ugu xaqnimo badan in la oofiyo wixii gabar lagu banaystay. soo saas ma ahayn. dhanka kale qaar ka mid ah dhallinyarada ka soo qayb galay bandhigga ayaa ayana ka dhiibtay aragtidooda. bandhiggan oo maanta runtii lagu gurfeynayo buuggaas Hilinka Guurdoonka iyo Hagaha Qoyska oon u arko runtii buug qiimihiisa leh waqtigiisina imi. runtii waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay bandhiggan oo runtii aad iyo aad qiimihiisa iyo qaayihiisa ku fadhiya. intaan bandhigga ka qayb galayna runtii saameyn weyn maanta igu yeeshay. أنا مقعد يا مسك أحمد محمد أو كصعدة جامعة أحفاد وحنا كقريب قال برنيكا بوجا هيلينكا جوردونكا هجا قويسكا عاد يدوشيخ ومهات سنة واحد بدنا أيانا كفايد لي. وأيه الدنبو حد دلك السودان كسو بدني أقول يهنا الصوماليات إيسو برنيكا يا بوجتا حد بوجا ني هيلينكا جوردونكا هجا قويسكا أيه وحنا نقنا يا ميت إسحي سلا أسود لبيان أرض الصوماليات يكونوا دلك السودان. حسن يوسف محمود، العالمية في مجال الخرطوم.